in badan baa wax badan isdugsadeen oo wax badan la qarqarinayay oo la lahaa war ka daaye caaw waxay maraysaa ku qariyay guunacad waa barnaamij aan waxba la isula hari doonin muuqaalkan sii sheer garee haddii rabbiidna meel dheer ka tuura meel dheer waa tahay barnaamijkeenu caawa laba qeybood buu u qeybsami doonaa insha allahu tacaala arrin waxaan kaga hadli doonaa wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee laascanood iyo qorshe halis ku ah bulshada reer laascanood oo hadda ay ku howlan yihiin maleeshiyaadka jabhadda SNM oo qorshahana haddaan laga hortegin wuxuu runtii caqabad weyn ku noqon doonaa bulshada reer laascanood sidoo kale barnaamijka qeybta labaadna wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala odayaal anu odhan maaye rag koofiyad bacadlayaala oo maanta laascanood ka hadlay oo wixii dhibaataa ee xumaana ee deegaanka ka dhacayay taageeray mid waliba 16 nin baa hadlay hal nin uusan caaqil ahayn oo ragga SNM mushaharka siiyana oo rag aan deegaankan iyo bulshadanba aan ku cusbeen ayaa maanta hadlay 16 ninba mid walba qabiilkiisa waan idin sheegay insha Allah taala yacud qof yahay xawal la isla harmay wax la reebanay ma jirto wad xishoon weeyeen Soomaa war ka daayaan u lahayn in badan baan tur ka gogoosareen oo aan war ka daayay ma waxay keentay in meel dar laga turo waay yaan la soo kala kiisay wuxuu dubahan la dhacay soo finiin kaga ma duulin waxba la isula harimay waxaan ku hormarayaa raggan odayaashan sheegtay inay magaca gobolka Sool odayaashan sheegay inay ku hadlayaan magaca gobolka Sool ee saaka lacagta loo qiibiyay lacagtu intee ahayd lacagii la siiyay iyo hadii la kuriyo qorshaha ka soo shaqeysay baarlamaanka ummadda inaan u iftiimiyo markii taladii dhulbahanta la arkay oo bulshadii kacday revolutionka dadka deegaanka ku nool ay saameyn yeelatay waxaa lagu yaqaanay SNM inay wax walba oo deegaankan ka yimaada wax opposite ku ah inay keenaan dhaqaalo walbana ay ku bixiyaan waxay maanta abaabuleen koox markii hore una camleen jirtay mushaharna ay siin jireen oo hadii alla ku reen gobolka caanka ah oo leeyahay fadlan ku shubo aniga hadda hadlaya afnugal media caawa hadaan kun dooro diro wallahi billahi tara soo hadlayaan Abbas waa lanta inta bili waa fadlan ku shubo waxa kale oo ku jira nin hadii hal ku reeyay laba simkaar la waa nidin daaray muuqaalkiisa before and after oo shalayna ka hadlayay kulankii maleeshiyaadka jabhadda SNM lagu soo horjeeday maanta wuxuu ka hadlayay hadii hal ku reeyay kulankii waxa weey labadaba waa la dhuuq inkastoo maaski xaray laakiin ilaa intee ba faarta afnugal media laga carari kara waa soo badhigana isaga insha Allah taala waxa weey hadii maanta ayaa dhaqaale ay bixiyeen dhaqaalahaasi oo loo qeybiyay 16 nin oo markaas dadka ugu leetaya dadka la isleeyahay waa la kareysan karaa ama waxa weey hadii la ku yahay waxa weey hadii baqdarka leeyahay dhaqaalo ayaa waxa weey la siin kara ama waa lagu shaqeysan karaa ama waa fadlan lacag ku shubo ayaa la soo xushay ragaasi 16 kamid ah ayaa inta hadashay waa arbaabana mid walba insha Allah taala qabiilkiisa waxaan ugu hormarayaa meesha ugu badnaa oo ahaa niman bahar rasama nimanka meesha ugu badnaa 3 meelood 2 meelood bahar sameeyay ninkii jiray dirbaaxa quureed dugsaday dhaqayadeed maali dushaaday sugtaa xaajadaad dhowrta abide meesha ugu dambeysay way xitaa waxa weeye ubadka la dhalay ubadka xitaa dhalan xitaa dhaqaalaha xaraanta ay siinayaan dhaqaalaha xaraanta xitaa looguma turin ubad bay dhaleen xaasas bay leeyihiin reeray leeyihiin waxa weeye waxa ay siinayaan wax xaraan way barnaamijkan ugu galaya waxa ugu hormarayaa inta beesha bahar rasame ee maanta laaluushka la siiyay waxa ay kala hayeen dhakalaf baa u horeeyay wani bahar rasama reer naalaya waxa ku xigay dhuungeeyay wani bahar rasama oo reer nuura waxa ku xigay aadan gooha xaaji xuseen wani bahar rasama oo reer naalaya waxa ku xigay cali bilo wani bahar rasama oo reer samatara waxa ku xigay cabdiciis baarud wani bahar rasama oo reer naalaya wali xaamud naalaya waxa ku jira axmed xayr wani bahar rasama oo reer faaraha
waxaa ku jiray nin la yiraahdo afartamaqaad waa ina xirsiwaal nin baharsan reer naalayaan. waxaa ku jiray nadalo ina cabdilaahi ina ilaaye isaguna waa nin baharsama oo reer badara. halkaa waxaad igu haysaan 9 xubnood. waayahay waxaa kaloo ku jira haddii alla ku ran yahay oday la yiraahdo jabdurwa waa nin jaamac siyaado fahiye axmed. waxaa kaloo ku jira qamadi saleebaan dhikil waa nin jaamac siyaado cali maxamuuda. dhanka kale la yiraahdo in cabdilaahi faarax urur ciid waa nin gaariyahan oo reer cilmiya. waxaa kaloo ku jira odagan oo isaguna ah nin nuur axmed. haddii alla kugu raya waxaa kaloo ku jira ninkan isaguna waxa weye reer cabdiya. ugu dambeyntii ninka 16aad waa ninkan ujeedaan. shalay maanta shalay odaybuu ahaa bilaamaaski buu ahaa qadiyada deegaankan ayuu difaacayay. maanta maaski buu xidhan yahay. ilaa intee ka dhuudhuuban kartaa ilaa faarta waxa weye afnugaal ilaa intee ka dhuudhuuban kartaa. waayahay nimankan waa niman haddii alla ku ran yahay la yaqaan magaalada caanka ah. walaa waarihan baysa matelin walaa jaamac siyaad bay matelin walaa khayr cabdi baysa matelin walaa haddii alla ku ran yahay bahar samaysa matelin. cid ay matalaan ma jirto. waa niman calooshooda u shaqaysanaya. waxa weye haddii alla ninkub hadduu calooshiisa u shaqaystana reere iyo jifi iyo group iyo magaalo iyo gobol iyo degmo total ma matali karo. runtii nasiib darro ka weyn ma jirto. waxay beeniyeen waxa haldoorkii magaaladan ay ku hadleen. war waxa aadan wali ku hadlay war waxa sheekh aadan wali ku hadlay war waxa ganacsatadii dadka miisaanka waxa weeye haddii alla ka lahayd diinta iyo dhaqaalaha inta magaalada hay waxay ku hadleen nimankaas beeninay kala. waa niman caan waa niman la yaqaan wey. wallaahi afnugaal media ku shuban kartaa dee afnugaal media ayaa ku shuban karta. afkooda aysan ku hadli karin reerahooda aysan matalin laas caanood baysan matalin. waxayna maanta ka hadlayaan runtii oo ay duusiyaan dhiigga 83 ruux ee magaalada lagu dilay. dhiigoodii ay maanta dafirayaan ay doonayaan maanta inay moosaan. wallahi waad u aanoobaysaan. wallahi khatar baad u geli kartaan. waxa way hawsha aad hadda faraha kula jirtaan haddaydan faraha kala bixin. waxaan rabaa inaan fariin u diro waalidka khaldamo dawaa la qabtaa. caruurtay dhaleen way maqlayaan weli si fiican aabayaashiin waa ujeedaa meeshay maanta marayaan. waxa weye mustaqbalkii dhulbahantay doonayaan god ku ridaan. wallahi ka yeeri mayno. maanta xiskiina iyo caqligiina aad qabtaan waraabayaashiin ummadda ka qabsada. war ragga meesha ka dhex muuqanaya rag ay ku kalifi karto anuu garamayo rag aan filayo ragga meesha ku jira ragga qaarkood dhaqaale aan kuma kalifin. maxaa ku kalifay? dulmiga iyo sharaf darrada iyo ceebta inay qaataan maxaa ku kalifay? anu waxaan oran karaa waa nacasnimo waa dulinimo. waa dulinimo. waxaa la siiyey lacagta la siiyey maanta loo qeybiyey min $60 $60 baa maanta loo qeybiyey. $60 ayaa loo qeybiyey. ninka qeybinayay loo soo diray ee lacagta qeybin ma raba inaan sheego waan ogahay xogtaa waan hayaa. $60 ayaa la siiyey. war ma $60 baad ummadaada ku gumeynaysaa? war ilaahay baan kugu dhaarsheeyey dulmi laas caanood ka dhacay ee dadkii masaakiinta ahaa intii la raray ee hooyooyinku waxa weye jidka ku umuleen. waryaa ma dhiiggayga baad cunaysaa? wallaahi gulnimo ka xuma jirto. wallaahi waxa weye maalinta aakhirana waa lagala xisaabtamaya adduunkana waa lagala xisaabtamaya. system baan u shaqeynayay system buu ahaa laga asmici maayo. maan ragga meesha joog kulli ilmaadiradood ba magaalada lagu laayay waa ilmaadiradood. dadkii magaalada lagu laayay waa ilmaadiradood. dhiigoodiba rabaa inay moosaan. war aaraare iyo raxaweyne jireerba 2007 ka hor way joogeen maxay u leen waayeen. idi fahane dhulbaantana waa idi fahme. dumar meelaha iyagana ku orordayna waa arkay laygu lahaa faqashini bay u badan yihiin. iyagana warkooda waa hayna dabagal baan ku hayna.